ومالنتي ugu horeysay Ramadaan bisha barakeysan awgeed waxaan jeclaystay inaan wax kala faa'iidno waxa ila xumaatay oo aad ila xumaatay waxyaabo aan ku faa'iiday oo cajiib la noqdo noloshayda inta ka dhiman aan wadi doono oo aan ku faa'iiday inaan ka qarsado ba aad ila xumaatay bil aadamku meeshu faa'iido ka arkana kama dul dhaqaaqo laakiin waa meeshu ugu fiicnay kama dul dhaqaaqay noloshayda inta ka dhiman waa wadi doona idinkana waa idin faa'iideynaya waxay tahay ilma adeeraya horta waxa aan la yaabaa oo aad ula yaabaa dadka uu ilaahay suuratu idaa waqaca uu baray oo ka cawda risaaqad la'aan oo ka cawda baraka la'aan macnaa inuu xooluhu barakoobi waayo oo lacagtii amba macnaa wax kasta iyo risaaqad la'aan ka cawda ayaan aad ula yaabaa iyadoo suuradaas ilaahay idin bara intuu ilaahay bara inta kalena waxaan jeclahay inay bartaan oo ila arkaan ayaan aad ula yaabaa ilma adeerayaal waxaa idin sheegayaa waa soomanahay oo wallahi idinku dhaaranaya hal bil may badan tahay maya soomaha way yar tahay hal bil waxa ila tijaabisaan habeen kasta suuratu idaa waqaca inaad akhriso waxaan ku ballan qaadayaa macnaa aan kugu dhaaranayaa bisha dhexdeeda ina isbedel weyn aad arki doontid waxaana kaa codsanayaa inaad muxuu ahaay luuqaad igu soo qortid isbedelka dhexdeeda bisha dhexdeeda aad aragto haddii aad ka cabanaysay risaaqad waxaad la yaabi doontaa meel hadda waa suuradda intaad ku dhex jirto bisha intaad ku dhex jirto suuradda akhrinaysa waxaad la yaabi doontaa meel alli iyo meel ay kaaga timi risaaqadani oo aanad ka filahay weligaana aad ka filahay waxaad la yaabi doontaayoo kale oo kuu ballan qaadaya bisha dhexdeeda haddaad habeen kasta aad akhrisan anigu leeyahay ka badan waan kula jeclaysan lahaa laakiin faa'iidada markaad aragtid ayaaba noloshaada inta ka dhimo bad go-aan ku gaadhaysaa inaad akhrisid suuradaas wallaahi waxaa kuu ballan qaadaya lacagtaad markii hore kusoo adeegan jirtay isla intaad kusoo adeegatay in ka badan inay kaaga soo hadho oo ay wax kasta kuu barakoobaan oo aad la yaabtid muxuu ahaaye isbedelkaas anaa kuu ballan qaaday wallaahi billah macnaha anigu saan idiin sheego noloshayda inta ka dhiman habeenna ilaawi maayo insha allah habeenna ilaawi maayo mana ilaawo sababtoo faa'iidaan ku haystaa oo maalin kasta aan ku arka maalin kasta maalina wax yar xitaa qofka biniaadanka waxbaa ku dhici kara moogta waxa daliil baaban idiin hayaaba waxaa jirta maalmo dhaweyd baa waxa iga lumay waxyaabo badan adigu horta waxa iga lumay kaar bangigii baa iga lumay waan yaabanaa markaa waxaaba ii soo gashayba gabadh aanan filahayn oo habar yaraya wallahi maanan filahayn wuxuunba igu tiri habar yar hoo lacagtaan oo habar maxaa dhaca habar ma anaa kula jeclaystay hoo marka anigu waan dareemay ilaahay caqli weyna siiyey moogta waan dareemay suuradda horena ma usoo arkay kaa badan saan waad mahadsantahay habar waad mahadsantahay ilaahay baa igu soo dhiibay suuraddan ayaa wadata xaqiiqatan waxaa jirtaba dee qisadaas cajiibka badanna waan maqlay mar hore ahayd waxay ahayd nin asxaabi haddaan khaldanayn haddii aan dee khaldanayn xoogaa iga soo saxa commentiga iga soo saxa nin asxaabiya u yimi baa la dhahay ninka asxaabiga ah ee loo yimi aad buu faqiir u ahaa caruur badan ugu dhalay marka ninkii asxaabiga baa ku dhahay walaalow haddii aad maanta dhimatid caruurtaada maxaad uga tegaysaa ilaa waxa ma haysataane suur caruurteeda waxaan uga tegayaa suuratu idaa waqaca saxaabigii baa yaabay suuratu idaa waqaca ayaan caruurteeda barayo suuradaasaa ku filan inta noloshooda ka dhiman marka maxaad ka fahanteen marka please ila soo tijaabiya luuqana igu soo bara okay been ma sheegaani xaqiiqatan waxaana idinla soo hor istaagi doona aniga waxaan tijaabiyo adduunka waxaan ugu jeclahay xadiiska marka aan maqlo waxaas inaan 2 bilood ilaa 3 bilood aan tijaabiyo imaka maanta arrinkan aan idin sheegayo 6 bilood baan wadaa wallahi hal habeen ma ilaawo sababta faa'iidaan ku arkay wallahi ma ilaawi doontid ya ma ahanin kasta faa'iido taagan ka wara masha Allah marka waan nila jeclaystay waxaan idin leeyahay hal talana ma idin siiyo
hal dardaaran miya hal dardaaran weligiin qofeydaan garanayn ha xukuminina. Ramadaan mubaarak.